الرحيم مدن يمعوين جمهورية سومالان waxaa ku soo gaadhay ayaan dheer iyo halka qalaan oo marxalad kala duwan soo maray tan iyo intii ay xornimada la soo noqonay waxaynu ku guulaysanay inaynu midnimada u adkaagno dhismaha qaran ee madax bannaan iyo nidaam dowladeed oo dhamaystiran eebaba haddii waxaynu ku guulaysanay nabad iyo xasilooni buuxda taasoo ku timid midnimada wadajirka iyo iskaashiga ummadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ogaana in muddada qarniga ah inagoo aan aqoonsi haysan aynu ku tallaabsano horumar weyn oo la taaban karo taasoo Soomaaliland ka dhigtay xaqiiqo jirta oo nin nacab iyo mid jecelba mid jecel toonna aan la fili karin dhinaca kale waxaan taabo gelinay nidaam siyaasadeed oo ku dhisan habka xisbiyada badan iyo doorashooyinka xora taasoo aanu ka tisqaadin qaaradda Afrika inteeda badan mudanayayabahoy inkasta aynu xaqiijinay guulahaan soo sheegay Soomaaliya waxay la wadaagtaa wadamada soo koraya caqabado tiro badan sida dhinacyada dhaqaalaha arrimaha bulshada deegaanka shaqo la'aanta saboolnimada iyo tayeynta maamulka dowladnimo waxaa si weyn loo saameeyey aqoon soo noqonaya ay sabab u tahay isbeddelka cimilada dunidu kaasoo inagu keenay hoos u dhac dhaqaale mudanayayabahoy si arrimaha xal loogu raadiyo xukuumadda xisbiga kulmiye aan galwadaagka ka ahay waxay diyaarisay markii ugu horreysay qorshe dhamaystiran oo qarankeedu leeyahay kaasoo la magac baxay qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sano ee lasoo dhaafay National Development Plan 1 qorshahaasi wuxuu ka tashanayay baahida bulshada Somaliland iyo mudnaanshaha mashaariicda deegaanada kala duwan ee dalka dhinaca kale waxaanu joojinay digsigii iyo hibaladii qarankani leeyahay ilaa 2030 mudanayayabahoy waxaa maanta farxad weyn u ah inaynu daafurno qorshihii labaad ee horumarinta qaranka 2017 ilaa 2021 qorshahani waa mid dadaal badan la geliyey oo ku salaysan xog xaqsoon iyo xaqiiqo dhaba qorshahani waa mid taladiisa ka qayb qaateen dadka iyo deegaamada ay sida tooska ah iyo si dadbanba u khusayso qorshaha horumarinta qaranka labaad waxaa mudnaan siinaya si loogu tallaabsan lahaa horumar ballaaran 5 sanada soo socda si gaara u baaraya yareynta saboolnimada abuurista fursado shaqo dhiirigelinta ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah kor u qaadidda wax soo saarka dalka sida dalagga beeraha kalluumaysiga beeyada iyo casriyeynta nidaamka xoolo dhaqashada ka hortagga abaaraha iyo la noolaanshaha isbedelka cimilada adduunka kordhinta kaabayaasha dhaqaale iyo adeegyada bulshada kor u qaadidda maamul wanaagga iyo xuquuqda iyo xorriyadda muwaadiniinta waxaan aaminsanahay in qorshahani qaranku uu horseedi doono isbeddel axaadi iyo horumar ballaaran sidaasna qarankan waxa uu dhexaad u ah talawadaad iyo isku tashi hoggaankiisuna waa qori isu dhiib sidaa darteed waxaa la jeeday madaxweyne bedeli doonaa oo xaqiijin doono qorshaha horumarinta qarankan ee labaad gabagabadii waxaan si weyn ugu baaqamayaa dowladaha aynu saaxiibka nahay ee Somaliland ka taageera horumarka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda waxaa leedahay libaax nin gaaladay iyo nin garayba labadaba waa ogyahay waxaan ku boorinayaa dhammaan bulshada reer Somaliland
iyo qaarabixiyaasha naga taageera dhinaca horumarka inay ka qayb qaataan hirgelinta qorshaha. waxaan sidoo kale farayaa dhammaan barayayaasha inay mashaariicda ay hirgelin doonaan ku sareeyaan qorshaha qaranka ee la qaado. ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta oo hormuud u yahay wasiirka wasaaradda gudaha maxamed ibraahim aadan qaryadka. waa mahadsantihiin labadiina abaale guula qarankeena.